السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. jaamacadaha bixinayo Finland way badan yihiin waxayna u kala qaybsan yihiin qaybo kala duwan oo bixiyo faculty kala duwan. Hadda waa University of Eastern Finland, jaamacadda bariga ee Finland. jaamacadan bariga Finland waxa waaye international mid ah oo caalami ah oo lagaga qayb qaato si wada jir ah scientific community. Afar faculty ayay qabaan: philosophical faculty filosofiyada, faculty of science, forestry iyo technology. Forest duurka mise geedaha miyaa ma aqaan, iyo technologiyada. Faculty of health facultiyada oo caafimaadka. Faculty of social science and business studies. Campuskooda wuxuu ku yaalaa Joensuu and Kuopio. Marka muxuu ahaa jaamacadahan way kala duwan yihiin, midba koorsada ay bixiso. Research education waxaan dhan akhrisiinaa la rabaa. Organization, contact information, connect. xitaa major attractive waa qofka ka shaqeynaya nolosha Finland. Strategy, leadership iyo finances. tan waxay ku fiicanta dadka masterka dalbanayo, compaska ay leedahay. marka muxuu ahaa markasta waa idin sheegay jaamacadaha markaa ku dhex jirtaan qaybta midigta kaa qabanayso saddexda falaar oo ku taal menuga waay. menuga taabanaysaa ka baro bariga Finland, continuous learning, research, collaboration, university, contact information iyo eventska ku yaala. halkaa markaad joogto stadigaa taabanaysaa. waa taas waxay bixisaa master degree iyo bachelor programs oo lagu barto luuqadda ingiriiska. waxay kaloo bixisaa non degree programs kuwaasoo kuu qaabeynaya particularly to the needs of exchange student, ardayda oo la isweydaarsado oo wadamada isweydaarsadaan. master degreegeena ardaydooda badanaa waxay joogaan jaamacadda bariga Finland, halkaasoo ay waxbarashadooda doctoralka kasii wataan. yacni haddii aad muxuu ahaa aad sii dhiganaysid PhD. bachelor iyo master degreega eastranka haddaa markaa meeshaaniti markaad joogtid ilaa hoos waa fiirin kartaa. exchange students samar ay qabaan, Finland unique ay qabaan, kasoo noqo. markaa meeshaan joogtid haddaa bachelor degree tahay bachelor aa taabanay, haddaa master degree tahayna masterka in badan ka ogow aa lagu dhahay. okay, maadaama ay nagu badan yihiin ardayda bachelorkaan taabanayaa. international bachelor degree ardayda degreega ugu horey raadinaya. ma rabtaa inaad noqoto qof khabiir ku ah waxbarasho iyo social science-ka oo ku qalinjabi master degree. for student holding upper secondary education certificate, ardayda wato dugsiyada sare fursado badanaa uga banaan iyo jaamacadaha Finland oo ingiriis ku baxa. maxaa rabtaa inaad baratida halkan lagu weydiiyey, bachelor mise master degree in data engineering. data engineering hadda wuu fiican yahay, read more aa gelaysaa. bachelor degree in human and planetary health, koorsooyin kalkaan ku yaala. master degree program information technology, lifelong learning in social science. okay, social science-kaana iska taabanaya, laakiin qof walba programkiisu taabanaya oo halkaas. waxaa kaloo jirta online event. waxaan rabaa inaan idiin sheego in online eventigan uu jiro 25 November 25 lama gaarin oo lagaga hadli doono. waa online, aad shirka galaysaa, waa dhegeysanaysaa. tuition fee-ga, lacagaha la bixinayo, scholarship-ya, deeqaha waxbarasho iyo fursadaha ka banaan. haddii aad danaynayso inaa bariga Finland jaamacadda la yiraahdo jaamacadda bariga Finland oo aad danaynayso deeqaha waxbarasho, waxaa kasoo qaybgeli kartaa halkaasaa register now dhehaysaa. waa iska register garaynaysa, taariikhdii saacaddaa fiirsanaysaa.
webinar kala jiro oo iyadana muxuu ahaa December la qabanayo sida loo galo admission tips bachelor degree Soomaalida kana qusay oo ardayda waxaan ugu badan dugsiyada sare laakiin qabqab iyo markaa shirka galis looma baahna hadaa shirkan isku register gareysid timeka ilaashanay zoomkaas markaa ka qayb gashan codkaaga waa xireysaa wax badan aad dhageysanaysaa yacni maanta waxaa maraysaa heer aad muxuu jaamacadihii dunida caalamka seminaaradooda ka qayb gasho 13 ilaa 16 November Ho Chi Minh City Vietnam dadka Vietnam waa la siiyaa okay how to apply sidee u codsan karaa webinarada halkaas iska diiwaan gelinaysaa codsiga jaamacadda ku soo haray application periodka oo dadka bachelorka raba luqadda Ingiriis ku baxda waxay furanta 7 January ilaa 12 waa maalmo kaliya furanta 2026 meeqa maalmood ay furantahay 7 bisha hadii la furo 12 kan la xiro waxa waa less than 3 weeks ay furanta ama 2 weeks programmada badan ardayda soo galaya sanadkii mar waxbarashadooda bilaabataa September kasto sida loo codsanayo complete online application lagu dhaxal halkan online ka buuxso codsiga national study info.vi portal during the application period halkaas ka buuxsanaysa good luck with your application process lagu dhaxal muxuu ahaa nasiib wanaagsan ku rajeynayna halkan waxaa ku yaal instruction sida loo codsado jaamacadda language requirement ayaa Soomaalida qosay waa maxay luqadda shuruudaha la igu xiray language requirement dadka bachelorka wato shuruudaha laga rabo ee luqadda dadka soo codsanaya jaamacadda waa inay muxuu ahaa luqadda Ingiriiska si fiican u yaqaanaan marka ay ka soo codsanayaan international degree programs oo Ingiriiska lagu baxa waxyaabaha aanu aqbalayno waxaa ka mid ah proven English proficiency are listed here shuruudahan ayaan aqbalaynaa in luqadda Ingiriiska ka taqaano ina awood u leedahay ability for bachelor degree programs taught in English based on one of the following in aad maxaa bachelor degree Ingiriis ku baxaayo aad saddexdan shuruudood ka soo bixi karto achieving minimum required scores and a proven English language test in aad cadeyn karto in aad muxuu ahaa luqadda Ingiriiska kaga soo baxday imtixaan hadda fiiriya adduunyada ardayda joogto waxay ka faa'iideystaan hadalladan oo kale ma lagu dhin IELTS aan ka rabaa TOEFL aan ka rabaa Duolingo aan ka rabaa lagu ma dhihin adduunyada waxaa la isku dhaafay aqli la isku dhaafay in luqadda Ingiriiska scorekeeda English language test ku soo qaadatay demonstrating language proficiency through degree completed English in aad degree ku soo qaadatay waa kuwan bachelorka wato Soomaalida oo MOI ga wataan waa la ogolaanayaa meeting program specific language proficiency criteria SATs score marka meeshan TOEFL kuma dhin IELTS kuma dhin laakiin all in all qof in dhaxiran oo luqadda Ingiriiska garanaynin ma gudbi karo marka macnaheedu waxa tahay hadaa ardayda Soomaaliyeed Ingiriiska ay saaraan xooga oo qofka luqadda Ingiriiska fursado badan u furayso scholarship kaliya maba adduunyada caalamka ka shaqeysan kartaaye sadaan oo kale jaamacado badan ay jiro luqadda dadaalkaaga 6 bilood kugu xiranta waa baran kartaa luqadda all supporting document must be submitted documentiyada aad ku cadeynayso waxaan oo dhan waa in aad online application system ka soo gelisaa deadline-ka waqtiga lagu qabtay application responsibility mas'uuliyadda codsiyada iyo arranging tests iyo imtixaanaadka la diyaarinayo ayadoo la eega waqtiga delivery of result late submission hadii aad ka daahdo deadline-ka lagu qabtay lagu aqbali maayo waa crucial ama muhiim ina waqtiyada qaadashada admission process-ka qofka codsadaha uu soo cadeeyaa luqadiisa skillskeeda as required by the programka qaadanaysid shuruudu kugu xiro haduu ku imtixaan ka qaada hadii cadeyn laga rabo waxa soo dhan waa ina keentaa only method list in the program admission program kasta admission kiis shuruudu ku xiran no waiver to the language proficiency required will be granted qof Ingiriiska laga cafina inuu luqadda garaneyn ma jirto program specific requirements can be found on the program's website studyinfo.fi accepted language tests maxaa aqbalnaa oo language tests waa inaad na tustaa
one of the international recognized English language tests below. halkan waa inaad kusoo cadaysaa luqadda ingiriiska aan aqbali karno. maxaa ka mid ah TOEFL, IELTS, PTI certificate oo 2 sano aana dhacsanayn, taasoo isla markii caddayn karto 7 January 2024 onwards oo 2024 aad soo qaadatay. TOEFL IBT minimum score waxaa laga rabaa 78. Addition test accepted. Scoreskaaga electronically lagu fiirinayaa. marka shuruudaha way furan. We accept also by best scores wax la dhahayo ogolin, yacni markaas kuguma qasbayaan TOEFL-ka iyo IELTS-ka xataa. UK VI tests accepted kaasta waa la aqbalayaa. marka shuruudahooda way iska furan yihiin. maxaa halkan ku yaal PTE academic minimum overall 54, C1 advanced minimum score C yaa laga rabaa, C2 proficiency yaa laga rabaa. marka haddii IELTS na loo diiday intan oo dhan waa heli kartiin. matriculation examination-ka language advanced syllabus, yacni luqadda aad fiirsanaysaa hadba middaa keensan kartid. upper secondary level-ka dadka English ku hadla ee EU-da joogo, United States, Canada, Australia, annaga Africa noqosayso. degree problem must be taught assessed in English at least 50% dadka oo waxaa kuwaanayta masterka doonayo. marka video ku xig waxaan soo duubi doonaa sida application loo bixiyo. SATs dad haystaan arkay, data engineering-ka program dadka baranay, human iyo planetary health SATs way ku geli karaan 28 January 3 galabnimo ayay ku egtahay University of Eastern Finland. waxaan soo